استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bluetooth mode. soo dhawaada maama soo yarbata استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إله هذا وين واحد يا رب العالمين. اللهم ذنب دف إله ختم خير ما ختم يا رب. soo dhawaada hooyo hooyo waan salaamaya salaanta islaamkaan igu salaamaya salaanta islaamkaan igu salaamaya shargaray hooyo habato meel dheer gaadho codku ilaahu ummada noo sakhir ilaahu adaa weyno waaxide yaa rabbil caalamiin ilaahu dulmiga 3 sano haysta yaa rabbil caalamiin ilaahu naga dulqaad maalin buu ilaahay farashku bixiya lagamana quusto baryada ilaahay samirkuna aad buu fiican yahay waan samirnay dad samraan nahay alxamdulillaah laakiin markuu ilaahay qofka khashifaayo xabadii furunkay Suudaan ka kacday waad ogeydeen ee bariga lagu biiriyay qiimaha lagu biiriyay siday noqotay iyo isbedelkii ka yimid waad ogeydeen annagana walaalaha reer Soomaaliya qaar baanan ogeyn oo moodaya inaan kibreyno laakiin maanta way nala arkeen hadday jool noqotiyo hadday bannaan noqotaba daalimiin xoog nagu haysata isku kaaya dirta alool xumana gelisay isku kaaya disha na kala qaadqaado qabiilba qabiil ha qabsada tira laakiin alxamdulillaah fuaad xalay sidii shalay toole videoga markuu soo duubay loo qaaday kadib looma maqal dadkii u galay umay gelin dadkii u galay waxay ahayd shaqaalaha oo ka waramayay dadka ama joolka ku xidhan ama askarta laga wareysanay wax ka waramay ma jirto cunto waa loo diiday xaaladda uu saaka ku sugan yahay reerkoogu war uma hayaan gabood agtiisa dad soo joogsatiin baa leeyahay war nilaga shaqayn gabood bana laguma arki karo marka waxaan doonayaa inaad xogaa ila yar dhageysatiin walaashii aan soo qaatay waata maxaa igu dhacay balaayo baa leeyahay intay kaa maqan tahay qayrkaabay ku maqan tahay balaayo intay kaa maqan tahay qayrkaabay ku maqan tahay halkaa rag badan baa ku dhintay aan keligii ahayn rag badan ayaa ku maqan halkaa keligii maaha arag maanta tiradooda aan soo koobi karaynin iyo halkaa ku dhintay qaar xitaa reer Soomaaliya ay yihiin markaa xalay toole anigu horta maba seexanba baroor way iga dhammaatay oohin waxba ma qabanayso waan ogahay laakiin waa waxa kaliya aad isku bixinay aad stresska ama cadhada iskaga saaraysa markaad cadhootid jirkiiba ooyaya naftiiba ooyaysa waxbay tabanaysaa dulmigay nacaysaa halkaa uu hurdo ee u yaala maanta yaan arkayaa halkaa ood seexan lahayd walaalkayga ama inantayda ama inankaygayo hooyo ka soo qaad bal adiga oo seexa lagu yidhaa laba habeen halkaa uu hurdo oo seexa lagu yidhaa ay dilma u dheerta addoonsigii oo cad oo lagaala gabanayn baa yaala Jabuuti markaan halkaa ka sheegayo been baad u haysateen in ilaha hooyo Jabuuti videogii baan laayahay waan khalkhalsanahay
سبحان الله إله النوالي إله النوالي يا رب العالمين إله ذوين واحد يا رب العالمين إله الندلين waxa imanaya dad isku diraya dadka oo qabiil kala qaadaya laakiin waa waxyaalo badan oo sheegayay dhagow dhigin gabadhu qabo waa gabadh isaaq hooyadeed waa isaaq hooyadii waa isaaq hooyadeed waa dhulbahante waan iswada dhaldhalnay aniga nila hadlay daarood baa dhalay qabiil kasta Jabuuti ku nool laakiin ciisa dulminaya anfar dulminaysa dadka kale annaga waxba naguma sameeyaan annaga dulmiga isku hayna laakiin waxaan u baahanahay inaan annagu maanta dhibaatadii aan isku hayni aan garanno inaan dadka kalena aan wanaag u horseedno waayo tiisa daryeela tu kala ku dara tiisa daryeele iyo tu kala ku dara dalka ciisi anfar baa wadale waa la og yahay laakiin iyagii hadda is dulminayaan dad kale ma daryeelayaan marka la doonayo tamtamka waxa lagu garaaci qabiil kale ana weeraraya qabiil kale noo soo socdo waa been ina geela arab halka markuu ka baxay tolkii baa dabada gashaday waayo muxuu joogi way joogeen isaaq Jabuuti inaan Jabuuti ku noolaanay wuxuu arkay waxa la yiri maxay hayday ninka kiisa u heelinaya iyo adigana ku heelinaya laakiin kiisa ninka u heelin waay ina geela arab mu heelinaya uma heelinayo ina geela arab tolkii yaalkay joogeen ay ku badnaayeen ay kala dambeyn ku lahaayeen buutag aawe kuwa ciisa isku sheegaya maanta gandadii ciisa aha ragoogi Samaare lagu dilay gandadii ciise talinaysay iyo lagu dhex dilay joolka Samaare dhexdeeda iyo gacanta ku hay waxa ku hay aqal Ismaaciil iyo gacanta ku hay lacag buuna siistay marka maxaa naloo oran ciisa maxay hayda la dulminaya lama dulminaya iyaga dhexdooda is dulminay maanta waxaan u baahanay walaalaha Soomaaliyeed walaalaha Canfareed intii daacada عرب هذا النقطة إساق هذا النقطة قد برسي هذا النقطة عد كستورير جبوتية وانو باهنا إسجوحن دوننا مدح بناني عدالة بندوننا وايه هذا عيسى نما وحقوق بنايا والله قراعي نينكي جولك سامر كجري محل قراعي واسكوهايب وقولدي محمود حرب نحن نجا ورنا محمود حرب ونجا ورنا يا ولي هذا وحنا نجا ورنا يا نفر لبعض دوسر يسكو صوته مع أضحكم حوكا ورنا ويبدأ يندرتد يوكو دم يوكو حسوق وده حقب ويبدأ يندرتد يوكو حسوق قال بقول أطلع يا قال بقول لكن سيدا والله بدأ قال هايستو ولي بسيرتو وقال ده نص هايستو إن وده حقب كي يفور لبها عد كله هايست مجرتو عد كله هايست مجرتو مدة لبعضنا ويبع عدا يستنبا وبقرطوية يدادن ماشن عدنا لا مجرتو عدنا لو ده كرتنا مجرتو مركا وحن ماشن نويا لا وكليا عيسى إتوبيو عثمان ميري يناغو هوين ناسله وهويا يا ودأ يكوا يريرب جولك سماري كو جيران جولك عنفرتا يكو دخ جيران marka maxay hayday ugaas Mustafa hadii aad maxay hayday wax ka qaban weydi gandadaadu ma waxbay ka qaban kari weydi Ismaan Mire markii shalay kani fiidiyogiisa la soo duubay iyo joolkinto laga soo saartay isagana xiniyaha dhulka loogu tumay xiniyaha ay oo la xiniye siibe nolol iyo geeri maanta wuxuu ku sugan yahay isna lamoogo rakala ku jiro urweyna ku jiro Saad Muuse ku jiro waxa ku jiro Horoona waxa ku jiro qabiil kasta iyo ku xiran joolka Samaara way laba bilood oo fasax uu siiyay Ethiopia waxbay ma qaadi karto Ethiopia dal bay leedahay dal baan leeyahay laakiin yaa wax iga qaaday yaa idibay yaa saa ii galay isaga sida ii galay ina meel kasta lagu dilo ragayaga meel kasta lagu dulmo oo halkaana been iyo propaganda inta la soo fariista la yida wallahi billahi wa magac ilaahay waxaan ku dhaaranay nin ilaahay yaqaan loo dhaarta subhanallah waxaan la qaadan iyaan ku noolnahay waxay Soomaali qaadan iyaan ku noolnahay oon adkaysanayna online cadowgu nagu wiirsan iyaan nili maqlin is astura usamra bari bay isbedeli illa ma maalintan calanka helnay halkii aan galnay iyaan ku jirnay halkii aan galnay ha sii kala weynaatee koob imika inta sanadood waystay isagu iyaan noogu dar alxamdulillah maanta hadda ummadoo dhan aragtay
joolka intaasoo geesi baa ku soo dhintay kaa keliya maaha kaa keliya maaha culuma hadday hadasho oday hadduu hadlo islaan hadday hadasho intaba wallaahi waa looma ooyaan baan noqonay looma ooyaan ma hadli kartid wax ma sheegan kartid ikhtiyaarkaaga wax kuma sheegi kartid cayba halkaa lagu daldali dee caynin lay qabataa caynin le iyay qabataa laakiin damiir xumadu waa doqoniimo waxaad naftaada u quurayn ilmahaaga u quurayn ilmaha kale ee agtaada gala iyo qofka kale ee dulmisan ka damqo haddaad dhiig leedahay ka damqo ilan damiir baaba kugu jiro waa adiga u hadlaya munaafaqe ka damqoo dhe war dee waxaan bilow berri anigana igu dhacday waxaan ahay gabar reer Jabuutiya waxaan arkay saaka Fuaad Yuusuf Cali in la dilay iyo in kala garan maayo isagoo go'ay oo nafku noolay baan arkay anigu waxaan la hadlayaa oo qura shicibka reer Jabuuti anu waxaan u malaynayaa shicibkii reer Jabuuti ee Jabuuti joogay ina walaalo la dilayaan u malaynayaa jool baan ku jira waxa ku dhacay garan maayo laakiin waxaan la hadlayaa dadkan qurbaha jooga ee maadartay qurbahan jooga ayaa la hadlayaa haddii dadkeennii Jabuuti ay joogay ay cabsoodeen ee cabsi ku dhacda oo maadartay Ismaaciil Cumar Geele ku dulkaadshayo oo waxaan ku yidhi ay waxba qaban karaynin ay arrintan ay ka bannaan bixi karaynin laga bannaan bixi karayo maadartay wax ay qaban karaan ayna jirin innagu dadka qurbaha joogo siiba dadka reer Jabuuti baan ka hadlayaa Jabuuti siday u dhan tahay meel kasta ay joogaan walaalayaal han bannaan baxno walaalayaal inaan ka hadis garab taagno nin waliba maanta isnabaya maaday ku haysataa leh you never know britol inay ku qabsan doonto you never know maanta dhibtaa reerka haysatay masiibada maanta inay kaa qabsatay inay ku qabsan doonto mataqaani waxaad qofka bilaadanka ilaahay isku naxariisana waan naxariisani inaka bilaadanka maanta sidaa loo qaraacayo ee sidaa loo dilayo britol nin waliba reer Jabuuti uu maraya taas waa xaqiiq xukuumadda dictatorginta intay joogaan nin kasiba waa xaqiiqta qof kastaba waa xaqiiq ya Soomaalidu waxa walaalkii loo hiiriyo adiguna soo qoyso maanta dib Fuaad tahay biri qof kale noqonaysaa biri qadka kale ku xigay noqonaysaa Fuaadna inta kasii horreysay sida la sheegayo صح marka waxaan ilaahay dadka reer Jabuuti ilaahayna abuuray hadda ka cabsi ilaahay baa laga cabsooda naftan saacadii ilaahay ku qoray baxasaa laakiin dulanka rabbi ku weydiin doonaa haddii aad madaragtay qofkaagii oo sidaa loo dilay oo saa loo tacadiyayo aad tiraahid maxaa iga galay anigu beriiskaygaana eeganayaa ani maxaa iga galay maanay maanta i haysataa haddaad tiraahid yoom alqiyaama tacadigaa aad maanta arkay sidaad ka hadli karaynin waa lagu weydiinayaa maysaanteen markaa reer Jabuuti waxaan ilaahay dhammaanteen kuwa qurbaha jooga kuwa Jabuuti jooga anigu ma garanayo way cabsi baa haysaa inta soo baxda dad badan ma soo baxayaan Jabuuti oo dhan inay soo baxdo weeyaan waa inay ninka wax u qabataa inankan u dhibaataysan yahay reerkiisa dhibaataa ku habsatay waxaan ilaahay aniga maanta shucuurtayda aad bay u kacsan tahay ninka maanta markaan arkay sida loo galay iyo halkuu ku jiro wallaahi shucuurtayda way kacsan tahay saasaan u lilmaynayaa waxaan idhi reer Jabuuti sidaad u dhintiin oo dhan ilaahay haddaad ka baqasiin dadka qurbaha joogaan la hadli aan isku soo baxno kuwa youtuberayaasha iyo facebooka ku jiraay ha nala soo hadlaan oo nin waliba reer Jabuuti halkaa ka hadlaan oo meeshaan iskugu imanano ha sheegaan meeshay doonta ha noqoto haddaanan muujin maanta shucuurteenna iyo dhibaatadayna haysatay haddaanan muujin weligeed tacadiga ka bixi mayno kolba weliban inan baa laga soo qaadano sidaa loo dili doonaa sidaasaana laga yeeli doonaa noloshan maanta intuu ku jiro nolol aqbali karaya maaha ma aqbali karno ma daawan karno mana eegi karno hadda waxaan dhegaysanayay inay gabadhiisii haddana tiri inay maadarta cuntadiina loo diiday nacam waxaa la doonaya in halkaa lagu cadaabo oo lagu dilo ilaahay ma odhan laakiin rabbi ma odhan ilaahay waxaan u baryayaa ilaahay inuu ka soo saaro halkaa ilaahay wadnaha ku joojo Ismaaciil Cumar Geele intaad u geysata ilaahay akaa jarabiya ugaawiyaadeeda awood baad sheeganaysaa rabbi baa ka awood wey ilaahay baa ka awood wey allaha kaa jaro masiiba cadiima ummadda
ummadad cadaabtay ummadad taxadi ku samaysay ummadad gaajo ku xukuntay haraad ku xukuntay allah adiga ilaahay waxa ku barina ilaahay waxa ku barina ummadda kala awood weynide inuu ilaahay calaamad degdega kaa muujiyo calaamad degdega adiga kuwa daalimiinta ay kula socdaan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم حياة دمشق دانتا جرتا رق بدن بالكا سو مري رق بدن با سو مري لكن وحبا سبب نقطة فؤاد سبب بو نقطة ما انتين الله أركو إلهي وحان كبريا إنو إساقو عافماد قبا ديبنا أقصو نقطة فؤاد إسبدل نالغو هلو واتن ولا شيء دقيستا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا فؤاد يوسف علي ولاشي. سدانا هاي قبض ما كسرنا قضادي أن قاضي ولا يقصوش. أمر واحد لقصيه عسكري جيبان كتشوي يقولي تقاضى كان تمر الماضي هام كان كوري قضاء لقى قاضي متشرس بيقول لن نقى قضاء هذا بيقول ما حد أحمر كان عندنا عسكري وانا أمر بالي يقصي waxaan shicib weynaha reer Djibouti u sheegaya walaalkay inuu ahaa in yar oo wadanka u dhashay refugees ku muuiman safar ku muuiman cadaalad ka cararay nin bay isqabteen nin baa loo xiray nin baa loo geeyay gabadh nin baa loo geeyay gabadh oo nin baa loo xiray oo nin baa loo xakisay wuu bukay oo nabaradiisa raqadkiisa loo diiday shicibka reer Djibouti iyo dawladda iyo xukuumadda dalka haysa waxaan u sheegaya inuu walaalkay maanta ay qodila national Djibouti maanta laga bilaabana wixii ka dhacay Djibouti faraha la hadigaa la gelin waa cid xukuumadda haysata waa askarta xukuumadda haysata waa taliyayaasha xukuumadda haynaale gabigiina nin wada sheegaya fuadiisa facay keegi muddo la cid wala dhashay qabiil ma waa qarn qabiil qaateen fad qabiil ma waa qarn waa nin Djiboutiya waa nin askariya waa nin ciidan ka tirsan buu ahaa wuxuu hanin wadanka u soo dhibaatooday oo tacliin iyo waxa uu soo bartay qabiil bi halka loo geeyay cid yahay qabiil iyo cid yahay fadalka loo geeyay oo maanta gaajo cuntada lagu soo diiday oo leeyahay maanta dib cuntada keen kartaa ma jirta lagu yiri hadduu alla ugu tala galay inuu ku dhiman hadduu alla ugu tala galay inuu ka soo bixi laakiin Djibouti waxa ku ballan qaadaya oo dadka wadanka haysta u sheegaya in maanta laga bilaabo waxaan reer Djibouti u sheegayaa Fuaad inuu garabkiina yahay oo dulmanahay oo reer Djibouti dushooda dulmanahay anagu hadday Soomaali tahay hadday Afar tahay hadday cid walba tahay halay ka canlay maanta waga jeer baa lagu haystaa inta la rabaa in ruuxaas la rabaa halay kaco anu sidaanahay gabadhan busta hor dhiganaya gabadhan hor seexanaya waxay ka qaadaan bayna leeyihiin assalaamu calaykum wad maqlaysiin waxa uu yaalo hooyada reer Djibouti inamada reer Djibouti abla reer Djibouti waxani rag badan baa soo maray oo sida ku dhintay dulmiga ku dhintay xoog buu nagu haystaa food cidi ma siiso isaga qaata foodka uu xadaa uu booba xoog buu ku haystaa afar calooshooda oo shaqaystayaal oo qabiil kasta iyo maanta garab siinaya laakiin maanta maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in la isgarab taago dulmiga iyo cadaalad darrida la diiday dulmiga iyo cadaalad darrida la diiday in la isgarab taago laga kaco Fuaad iyo dadkooga la garab joogsado oo Fuaad banaanka la keeno waayo waa wax nigu socda weeyaan waxaad maxay hay'adeen naga maqnaanaya maaha waxani waad maraysiin haddii sida u socoto video baan doonaya inaan tuso laakiin ma furno ma soo qaadi karo halkaas ku jira waxa weeyaan ma ahayn public baan u malaynaya Fuaadka videogaas wuxuu yahay shakhsi gaara dadka gaarka ah amiga la inay arki karaan bas marka waxaan leeyahay reer Djibouti tani daayiman yaa nilgaga dhigin doqonimadana la iska daay gibisha la iska rog cagahan qabsaday buu intoon u tagay cagaha yaan qabsaday si aan aradi uga biyo maadaama uu cagaha qabsaday maxaa u haray soo inuu gumeeyo oo adoonsada uguma talagelin uuba gumeeyay marka uu cagaha qabsaday uu Fuaadi soos dhigay maxaa u haray hayd wiibow xarafkaas meel buu kugu qoran yahay maxkamad
iyo maxay ahayd inta uu Fu'aad maray in ka badanna waad mari doontaa rag badanna way kugu maqan yihiin hadday meel kasta joogaan askartu dulmi way qabaan laakiin maanta waxa la sugayaa sheeko uma baahno haddaad kaniif dhexdeeda miskiid uga dhigteen ood uga dhigteen masquul cabdi ilay meeshii uu dadka ku xidhayay heego cashar buu ka qaatay Ismaaciil Cumar heego markay timid Jabuuti casharkii ay qaadatoon ba ku bilowday dadkeegana macna male waa laga bixi ragibaa leeydi ciil cadaab ka doore iniga is xoreyn kara iniga dadkiina xoreyn kara iniga dulmiga iska rogi kara waa nin xaqanaas oo jareera waxa lagu yiri wuxuu ku keeni maxay ahayd wuxuu ku keeni waxaad u baahan tahay dhan wuxuu ku keeni maxay ahayd dalkaagi hantidiisi iyo cuni nin xaqanaas oo qaaday oo toomi leeyda oo jareera oo kristaana oo waliba diinta islaamka aysan waa fi privogo waxba naga ma gelin laakiin aawe wadanimadii iyaa la qaaday xoolihii dalkoo dhan intoo loo dhibay 5 diyaaradood loo sameeyay Soomaali Maxamed 5 diyaaradood iyaa la siiyay xoolihii dalkoo dhan baa la siiyay shinu alaabtuuna siiyay iyo waxa ay meesha lagu hayo kaydka ee nolosiya deeqda isaga soo qaada ay yiraahdeen maxay ahayd askartu maxay ahayd rag ofiisiyada ee sargaalada intuu geey toomi baa keenay waa khadra xaydinanteeda ina Ismaaciil Cumar ninka qaba iyaa keenaa la yiraahdo oo ni keenay bahaladii sanka lagu xidhanay oo 10 kun oo mask ni keenay kubadii cagta lagu ciyaaray baa joolka uu sii haye halku ka keenay baararku ilaalinay Francisca baarka Vider booha wala yaqana Vider wuxuu ka dhigay ninkii aha ee hanti haysan shanfar muusidan markuu soo galay Jabuuti 5 sanana ma qaba gabadhiis maantana 5 diyaaradood buu leeyahay xoolihii dalka wadaniga reer Jabuuti ka gaajoonayaan reer Soomaaliya oo dulmiga haysta iniga nima haysto ta aan qarsanayno maad gaadhin ceebtayada ilka dhigle baa leeyahay badna waa la liqa badna waa la tufa taaban ku noolayn on qarsanayna waan dulmanayn wax kasta nala mariye wax kasta oo xaraana yaa nala mariyo cabana laga yiri oo raanli ka ahayn qarrada khamriga wuxuu ku soo taswiiray toomi qarrada khamriga calankii Jabuuti waxa hadhay ninka diinta iyo waqfiga islaamnimada waqfiga iyo diinta iyo maxay ahayd fanka ninka haya wasiirka waa isku mid wuxuu isku xidhay wasiirkii danska iyo wuxuu ka dhigay diinta taasaan ku noolay waxaan ku noolayn foodka marka la helo halka dumar lagu soo qaada akhrin oo la weydiin meel xun iyo jahannamana way ku dambaynayaan halka inta lagu soo guro warqadaha foodka iyo 20 loogu riday saacada markay 5-4 galabnimo gaadhan faad baa la isla dhacay oo laga saaray dadka oo booliisku garbaduub xidhay dadka la dhiganaya foodka Ismaaciil Cumar oo la xidhay كمان نهلينا وانقرسنين عد انترناشونال وانتو نو تيمادو فالله ديغان كرت ما جير 20 سنه horta fool la maarag fool la dhigto Allah u naxariisto waxa noogu horeey ceelaaba noogu horeey maalintan calanka sida uu helnayna dawaka Soomaaliya iyo waxa loo fikiray sidii loo kala furfuri lahaa Soomaaliya dhibaatada ay maanta martay iyo al-shabaabna isaga soo samaystay maxaa beel la iskugu sheeg isaga samaystay Soomaaliya hadii inay degto aad doonaysiin degi maysa inta uu jiro Ismaaciil Cumar taaniyada galiya reer Soomaaliya annagana shalay Allah u naxariisto reer Soomaaliya na soo garab qabtay maantana garab baan iga baahna xabashi garab kama arag Itoobiya garab kama arag dulmi baan ku aragnay Itoobiya waana duluntay kayagii u doontay nabadgeliyo iyo soo dhiibeen aqli bay ciyaarayaan si ay Soomaali loo jahwareeriya loo sameeyay garab kama helin geesiyadeedii oo dhan baa la cunay Itoobiya inta laga daba la soo dilaa Itoobiya laga daba la soo dilaa meel kasta oo joognana lagu soo dilaa wuxuu noo bixiyay magac badan buu noo saaray al-shabaab weeyaan buu ka yiraahdaa gaalada waa kani weeyaan buu yiraahdaa ila ma maalintii Francisco noo yimiday masiiba neesha meydkaagii xitaa meyda
dambe maxamuud xarbi maanu arag sidii maxamuud xarbi loo dilayba 60 ilaa iminka dulun baa nagu socda waan caga dhigan laanahay Soomaaliyeed waan dulmanahay meel kastaan ku dulmanahay dalkayagii baan ku dulmanoo dibad baan isku soo shubnay ويطلع يا ربي dumarkaygu maalin kasta gambacad bay qaadan inama shabaaba oo dalka u soo halgamay yaa joolka lagu dhex dilaa oo weli hadda qaar ku jiraan aan ikhtiyaar meel maxkamadda lagama furayo albaab meelaad ka dacwadid meelaad ka sheegtid ma jirto dhibta aan qabno cid qabta ma jirto hadday Facebook soo fadhiistaan Cabdilaahi Cabdi baa loo dira ragaygu waa la dhameey dhibaataan qabnaa waan dulmanahay aan isgarab taagno maanta Fuaad iyo inta kale joolka ku jirta aad dulman isbedel ma helayno inagoo oo iska ay garab taagan mooyaan ninkuu ilaahay u qora kursiga fuuli ninkuu ilaahay u qoro yaa fuuli ninkuu ilaahay u qora fuuli laakiin isbedel baa loo baahan yahay isbedel baa loo baahan yahay isbedelna waxaad ku heli gacmo wada jir bay wax ku goostaan gacmo wada jir bay wax ku goostaan kaniifkaas xitaa rag xamraawiina oo waxba dambi geysan ba ku dhex dhinta kaniifka maanta uu ku dhinta isagu waxaa ka mid a ninkii fanaanka raan loo odhanay oo nin Soomaali oo dad guray dartii loo xidhay dad qaaday meel kasta ka qaaday dartii loo xidhay rag kale oo lagu xidhay dalka oo joolka lagu dilaa jirta cid aan soo marin joolka oo ku dhiman ma jirto heer wuxuu gaaray khadraxayd inanteeda ninka qaba waa la yara bikirka u shaqo tagay meelaha shaxyada lagu iibiyo sharaabka dariiqa intuu ku fuulo kubsado 300 kun loo geeyay gabadhu dariiqa ku bikir jabiyay oo ku fuulay shaaraca kii dalkiisa u soo dadaalay oo u shaqeeyay shabaabka ahaana joolkaasuu ku jira intay qaaday 300 kun aqalka ugu geysay tiraan haddaad hadashiin halkaasaad wada galaysid ay reerkii shib yidhaahdeen hablaha halkaa intoo la qaado la geeyaa filmaan boorno ee lagaga sameeya oo laga duuba naf bay la wada hadlayaan dadkan fadlan lacag ku shuba inta noqoto waxba igama gelin laakiin cid kasta oo reer Jabuuti maanta dhibtu way gaadhay waad arkaysiin halka uu jiifo uu salaad ku tukanayo waa halkii ku dhintay Jabha waa halkii ku dhintay Maxamuud waa halkii ku dhintay Qaadiro waa halkii ku dhintay inankii kale maxay hayday ina aadan buraale cid kasta rag aan tirin karin baa halkaa ku dhintay waa lagu dhex jir dilaa joolka dhexdeeda inta isdeestuu tagto waa reer 4 nin oo reera iyo xukuma beenna maaha anagu ma maasanoo dhan ma haysano reer markii la yidhi ha soo wada karkarina haddii aad magacii qabiil hadduu maanta ninkaasi fuurlaba noqdo waa la odhan waa fuurlaba kaasi waa la sheegi waana la isku gartaa de kaaga xun aad uma qaban kartid oo adigii mamaasan baa dulman oo misan inoo mamaasanaa la dilay laakiin ilaahay baa ka dhiga mamaasan marka la sheego mamaasan inaa la wada haysto ha moodin ilaahay baa ka dhiga 4 tuugta 4 kalena way ku shaqaysanayaan 4 kale se pouvoir male laakiin pouvoirka yaale 4 taas haysata 4 sacabka u tumaysa maxamed jaamac waayo xasan madoobe waayo kaboorka haysta waayo ismaaciil cumar waayo yaa ka sareeya ismaaciil cumar ka uu dirayana waa kuu shaqeeya wuxuu leeyahay biilka ciyaalka ka guy laakiin maanta waxa loo baahan yahay biilka ka guy maaha xagga ilaahay ajir ka raadso tan waa ajir iyo xasanaad haddaad dhimatidna haliyeeyaa soo dhintay waxaad ku dhimanaysaa isbedel waxaad ku dhimanaysaa joolkood ka soo saartid 2 bilood coronavirus baa socday muu socon ee wixii la dhuudhuumanay intii la garaacay laakiin xagga ilaahay buu baaqi ka oo la tumay maalin walba loo tagay joolka dhexdeeda isbedel baan rabnaa reer Jabuutiyo maanta sarakaca wihib iniga soo saari kara inigana dili kara inigana daawan kara
magaalo kastoo joogtiin qof kasto oo maxay hayde macaarad iyo maxaafidba isbedel baa la rabaa waay maxaafidku macaaradka maxaad u haysataa macaaradku ma dadku cuna macaaradku wuxuu rabaa cadaalad maadanadan aad joogtiinba waad arkaysiin macaaradka macaaradku waa wadani waa walaalka cadow maaha isbedelun buu rabaa cadaaladda wuxuu diidayaa dulmiga ay ku jiraan wuxuu diidayaa dhibaatada ay qabaan wuxuu diidayaa xoolaha gaarka loo yeeshay wuxuu diidayaa maxkamadda aqalka looga talinayo qoys u talinaya reer baa u talinay ay Khadre Xayd iyo Ismaaciil Cumar u talinayaan waa naag iyo nin qura waxa gebigiina basanka xadhigniga geli Tomio qaawan oo shalay yimid iyo dalkiini maanta nigu xukuma cadaalad ma jirto Jabuuti xeer ma jiro